ciidankeena waynu garab taaganahay waxaynu leenahay Puntland xuduudkeena hadday soo gasho SSC-na ay dabada ka riixayso Puntland marnaba ogolaan mayno haddii aynu inteena ku baxayno haddii aynu magac reer soo gelino meesha waxa buraya magaca leedahay qaranka waxa buraya magaca leedahay ciidanka dadka qaranka wada degan haddaanay qaranka wada ogolayna ma wada ilaashamayo taa lafteedu waxay u baahan tahay inaynu ogaano inaanay Jamhuuriyadda Soomaaliland reer dagaal kula jirin inaanay Jamhuuriyadda Soomaaliland inaanay magac reer ku hadlaynin marka koowaad arrinta gobolka Sool ee ay ka dhacday dhibaatada iyo dagaalku waa meel ka mid ah Jamhuuriyadda Soomaaliland ereyga dambe qaranka aynu isticmaalno iyo calankan aynu adeegsanayno iyo ciidanka aynu adeegsanayno intuba wuxuu ka kooban yahay midabada kala duwan iyo degmooyinka iyo gobollada kala duwan ee Jamhuuriyadda Soomaaliland haddaynu Soomaaliland qodobka dhidibnay oo aynu Soomaaliland leenahay waa inaynu horta ogaano gobolka Sool inuu ka mid yahay Soomaaliland oo waxay u jirtaa Laascaanood 120 kiiloomitir Laascaanood xuduudka aynu sheegayno waxay u jirtaa 100 kiiloomitir waxaynu ognahay in dagaal ka dhacay dagaalka waxa ku noqday reer Soomaaliland intii halka joogtay Direyska xidhan ee halkan joogtay iskuulada ka timi jaamacadaha kuwii ku jiray kuwii dugsiyada hoose ku dhax ku jiray kuwii deganaa ee sideenoo kale magaalada deganaa ayaa qaxay taa macnaheedu waxay sameeyay dadkii muwaadiniinta reer Soomaaliland ID card-ka lahaa inay qayb ka mid qaxeen taa lafteedu waxay u baahan tahay inaynu ogaano inaanay Jamhuuriyadda Soomaaliland reer dagaal kula jirin inaanay Jamhuuriyadda Soomaaliland inaanay magac reer ku hadlaynin inay muwaadiniinta iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland dagaal ka dhacay oo aynu qaboojino inay tahay inaynu qabsano waa koow talabaad kale Puntland iyo Soomaaliland waa laba magac oo kala jaada marnaba ma ogolaanayno inay Puntland xuduudka Soomaaliland soo gasho haddii SSC uu dagaalamayso inay Puntland meesha keento ma ogolina ciidankeena waynu garab taaganahay ciidankeena waynu garab taaganahay haddii aynu doonayno inaynu gobolka Sool xalino gobolka Sool iyo deegaanadiisa iyo dadka qaxay waa muwaadiniin reer Soomaaliland inaynu sida kuwa burco ugu damqano weeyaan inankii gabayga halka ka tirinayay ee reeraha sheegayay ee afka reerka ku hadlayay Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo inaga iyo burco kuma matalo waxaynu leenahay nabadaynu ku soo dabaalno waxaynu leenahay Puntland xuduudkeena hadday soo gasho oo ay arrinka dabada ka riixayso SSC-na ay dabada ka riixayso Puntland marnaba ogolaan mayno haddii aynu inteena ku baxayno marnaba ogolaan mayno haddii inteena ku baxayno laakiin waxaynu ku baaqaynaa nabad waxaynu ku baaqaynaa wanaag inay xunina ma matalo haddii aynu magac reer soo gelino meesha waxa buraysa calankeena waxa buraya magaca leedahay qaranka waxa buraya magaca leedahay ciidanka laakiin mar kasta inagoo Soomaaliland iyo qaranka ka hadlayno ciidanka waa inaynu qalbiga ku hayno in muwaadiniintii Laascaanood ka qaxay iyo kuwa dhintay iyo kuwa la hayo intuba ay walaalada yihiin inaad qaranka la doonayso dadka qaranka wada degan haddaanay qaranka wada ogolayna ma wada ilaashamayo idinkana waxaad ku wacyi gelinayaa afkeena aynu ka dhawno reer